السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي أصحابتي ذي قالية وشرفت له إله سبحانه وتعالى ها إذن حفظه ملكستو أتكسو انتهين إلهين ها إذن كراميو إلهين ها إذن شرفه بإذن الله الكريم ملكستو أتكسو انتهين إلهي كرامي شرف يعزها إذن يلو بإذن الله الكريم وولاشين إلفيس جانل كايقا داوانيسان وإلفيس فاميلي جانل أيامها والا كلا مشغولة إسكا دعي وإسكا مشغولة دي أدوية إي حالكيدا واي لإسكا لما ياواي دبا إسوغو سو لاباناي إن شاء الله تعالى وحان جعلهاي maadaama muddo aydan ka maqnaa barnaamijyo xiiso leh oo wanaagsan oo adinkana faa'iido idin anigana faa'iido ii ayaa insha Allah idin la wadaagi doonaa biidnillaahi kariim siiba barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay qoysaska dhisan ayuu barnaamijkan ku saabsan yahay maasha Allah waayo khilaafku iska badan yahay sharta iska badan dulmiga iska badan shayaadiinta iska badan dadka isjecel waxa cadowga ku eba iska badan shaydaan iyo inziba ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha soo hanuuniyo inta markasto dulmiga iyo xumaanta ka shaqeyso ilaahay soo hanuuniyo ilaahina insha Allah ta'aala ha ka hanuuniyo biidnillaahi kariim walaalahayga qaaliga sharafta leh maxaa idin la wadaagi doonaa 10 ku saabsan qoysaska sida haweenta iyo ninkeeda isqabo 10 kan bil xaqiiq muhiim waa 10 muhiima adinkana muhiim idin yahay anigana muhiim buu yahay awalan haweeneyda iyo ninka isqabo waxa looga baahan yahay khilaafa imaan karo waa la isku dhici karaa waa la isdhaafi karaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa carab iyo ilka ugu dhaweeyo isqoomaan waa la isku dhacaya khilaaf uu imaanaya laakiin maxaa la rabaa khilaafkii hadduu imaado khilaafku waa in xal loo helo ma ahan khilaafka inuu noqdo mid reerka burburiyo ama reerka saameeyo ama caruurta saameeyo ama ehelada saameeyo inuu khilaafka noqdo lama rabo khilaafkii hadduu imaado dhexdiina labadiina aad tihiin wuxuu khilaafku ku imaaday waa inaad xal aad u keeni kartaan khilaafkaas imaaday ma ahan inuu ilmihiina saameeyo uu saameyn ku yeesho eheladan uu saameeyo ma ahan ama asxaabta uu saameeyo ma ahan khilaafkiina inuu adinka khaas idin ahaado ayaa qurux badan inuu adinka idinku ekaadana qurux badan khilaafkiina sida aniga ila qurxan ilfis ahaan aanan jeclahayna bil xaqiiq ma jecli aniga ninkiga hada iskhilaafno shalayba waa ishukaansanay anaga iskeensanay anaga isjeclaanay maanta hadduu khilaaf imaaday dee waa inaan isxallin karno ma ahan laazim ma aha inuu oday gartanada galo ama ay dadna xalliyaan wax qurux badan maahan waa inaan anaga isxallin karno awalan qodobka koobaad haddaad iskhilaaftaan ha soo hadal qaadin shayga la yiraahdo furniinka waayo haddaa furniin soo hadal qaado xilligaas khilaafka uu taagan yahay heshiis diyaar uma tihid haddaa khilaaf soo hadal qaado furniin waayo furniinka waxyaalo badan ayuu haleeyaa uu qaribaa qofka markuu xanaaqsan yahayna waxa ka dhacayo iskama warramo waxaa laga yaabaa marka inuu xanaaq kaa keeno laakiin ma fiicno ha soo hadal qaadin iska badaa batanba furiinka sidaan wada ognahay wuu imaanaa oo waxaa loo soo dejiyey maslaxad furiinka maslaxad ayaa loo soo dejiyey laakiin waa goortay xaaladu barakama leh ay istaagto oo xal loo arko inuu furniinkan xal noqon karo waa goorta ayada ma ogiye inaa xilli kastoo anagio isjecel oo israbno oo kala dhammaanin inaa haddii wax yar ayna dhex maraanba ifur wari aniga ifur idirci danadii warqadeediisii waxaas wax fiican ma ahan hana soo hadal qaadin hana samaynin biidnillaahi kariim talada caawa idin siinaya inaad iga qaadan doontaan ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala ha soo hadal qaadin arrintaas iskana ilaali qodobka labaad garaaca ama gacan qaadka hadba saa u taqaano ha ku degdegin waayo ma haboono inaad af inta laga wada hadlay aad gacan qaado wax qurux badan maaha rag iyo dumarba wax ku qurux badan maahan waayo waxaa u ekaanaysaa qof aanan heshiis diyaar u ahayn oo kelitalisnimo wato ayaa u muuqanaysaa kelitalisnimadana ma loo baahno wax fiican maahan inaa keligii taliye ah noqoto aniga ina boqortooyo aan hay ree hebel baan ka dhashay maanuu raba anuu ree hebel ka dhashay inuu saas yiraahdo wax fiican maahan ma anay rabtaa anigoo ina boqortooyo ahaayo ina bahal ahaayo ina geeda fuulo ahaa miyay rabtaa naagta xunta inay ii taliso wax qurux badan maahan ha samayn
wax kasto xal bay leeyihiin wax kastana waxay ku wanaagsan yihiin in hoos loo xaliyo waayo soomaalida waxay tiraahdaa gacmo geel jir hoos ayaa loo dhaqaa soomaalida ku mahmahdo gacmo geel jir hoos ayaa loo dhaqaa kan saddexaad qodobka saddexaad ayaa kuu soo haray laba qodob ayaan kuu sheegay qodobka saddexaad ka fogow habaarka iyo wixii la mida iyo cayda habaarka ma fiicno wax fiican ma ahan inaa ninkaada habaarto wax wanaagsan maahan inaa adna haweeneeda a qabta a habaarto wax wanaagsan maahan waayo farac baa idinka farcamayo dadka idinka farcamayo ayuuna saameynayaa habaarkaas ma wanaagsano caruurtu saameynaya eheladu saameynaya dadka dhanuu saameynaya ma fiicno hana ishabaarina hana iscaayina hana ishabaarina hana iscaayina waa qodobka saddexaad qodobka afraad markaad iskhilaaftaan oo khilaaf yimaado caruurtiina ka ilaaliya khilaafka ama inay maqlaan hadalkiina iyo sawdkiina ilmihiina adinkoo is haysto oo isxagxaganayo oo madaxa iskula jiro inay ilmihiina maqlaan wax qurux badan ma ahan iska jir iskana ilaaliya arrintaas arrin wanaagsan maahan ka fogow qodobka shanaad iska ilaaliya xilliga khilaafka uu taagan yahay inuu khilaafkiina uu saameeyo eheladiina iyo dadkiina inaad u gudbisaan ama ay ogaadaan waayo adinka waa heshiinaysiin waxaa laga yaabaa inay heshiisaan isku soo laabataan reerkiina halkiina aa kasii ambaqaataan laakiin ehelada maxay oranayaan kii xumaayoo nijaaska ahaayoo gabadhanada saas yeeli jiray soomaa kii gabadhanada hadda ka hor wax isku sameeyey soomaa way gocanayaan mar walba eheladii khilaafka idin dhex maray reerka wiilkana waxay oranayaan ma inkaar qabtadii maalinkii saas ahayd wiilka taas ku dhigtay inkaarii rasuulka taas maxay qabtaa waa tu habaaran hedha hebeltaas way habaaran tahay yaa ka qabto maxaaba kuu keenay haddaabad gudbinin ka waran khilaafkiina uuba gaarinba ka waran ehelada ooba wixiina qarsataan way qaas idin noqdaan soo kama sii fiicno intay eheladiina inta gaaraan wax kale imaan lahaayeen cilado kale xataa waxaa laga yaabaa even adinkooba cilad lahayn oo khilaafkiina hadda wax sii weyn uusa ahayn waxaa laga yaabaa inuuba cilad la idin yeelabo oo la idinku ceebeeyo khilaafkiini yaaba dhici kartaba wax wanaagsan maahan ayadana waan inkaga digayaa wax qurux badan maaha wax wanaagsanna maahan waana inkaga digayaa arrimaha ayaga inaad samaysaan insha allahu tacaala waan rajeynayaa inaad qaadan doontaan waxaa idiin soo gudbinayo aniga ilfis ahaan qodobka lixaad ha soo hadal qaadin hana isku ceebeyn noloshaadana ha ku ceebeynin wax horay u dhacay oo tegay oo laga soo tegay ha ku ceebeyn noloshaada hana soo hadal qaadin waa wax laga soo tegay oo horay u dhacay oo horay u jiray ha soo hadal qaadin qodobka toddobaad ayaa kuu soo haray qodobka toddobaad gurigaaga ha ka bixin siiba haddaad tahay haweenkay gaar u tahay guriga ha ka bixin haddaad iskhilaaftaan allah baana kugu amray inaadan guriga ka bixin haddaa ninkaada iskhilaaftaan asaga ha baxo hawo ha soo qaato jawi degan ha soo qaato adiga gurigaadii ilmahaada dhex joog haddaad ilmo leedahay ilmahaada hayso haddaada ilmo lahayna gurigaada dhex joog saas ayaa qurux badan inaad guriga ka baxdo waa wax laga qurux badan yahay ma fiicno wax wanaagsan ma ahan ha ka bixin gurigaada khilaafkii ayaa sii badanayo haddaa guriga ka baxdo khilaafkii ayaa sii ballaaranayo khilaafkiina ayaa sii weynaanayo mideeda kaleeto marka ay iskhilaaftaan oo khilaaf yimaado ha dhihin mana la sixiray waana la sixirashow xumaanta iyo waxyaalaha qaar maanta dunida ka jiro oo dadka adeegsadaan dadka markay ayaga iskhilaafaan oo ayaga dhibka ay soo jiitaan oo ayaga dhibka ay sabab noqdaan waxay leeyihiin mana la sixiray dad ayaana sixiro noloshanada ku xun ayay leeyihiin wax wanaagsan maahan ha soo hadal qaadin arrintaas ma fiicno iska ilaali haweeney haddaad tahayna ninkaada aad iskhilaaftaan gurigaada ha ka bixin hana ka tegin gurigaada ku jir gurigaada saas ayaa kuu kheyr badan kuuna qurux badan kuuna wanaagsan arrintan hadda aan ka hadlayo haweenka ayay gaar u tahay mideeda kale haweeney haddaad tahay ninkaada hadal fiican oo naxariis leh oo raxmad leh oo wanaagsan kula hadal mar waliba ninkaada iska ilaali iskana ogow markay dad la socdaan ama marti ay la socoto ama rag ay la socdaan kale oy la imaadaan inaan sawdkaada la maqal ku dadaal oo sawdkaada aa qariso haddaa ilmahaada u yeeris iyo haddii kaleba ha lagu shakiyo guriga ninku islaan uma joogto miyaa caruur waaba u joodnaa waan aragnaay ha lagu shakiyo dadka ha ku shakiyano guriga imaanayo waayo ma wanaagsano
in adoo ninkaada marti la socdo ama rag uu la socdo sawdkaada la maqlo wax qurux badan maahan. isqari intaa isqarin kartid. hadday martidaas ninkaada la socoto aa wax u diyaariso ama wax u geynayso ama shax u geynayso zawjkaada taleefon u dir. adduunka maanta wuu hormaray war isgaarsiina meel kasta taalo maasha allah. taleefonka u dir oga baaq kaala macaanow martida ugee alaabtan asaga ha kaa qaada asaga ha geeyo. haddii markaas wiil kale uu kuu joogo oo wax qaadi karo adeegi karo asaga u dhiib. haba qaadin adii haba ag marin ragga asaga la socdiya asaga toona agtooda ha tegin. waa dardaaran aan siinaya gabdhaha. ma fiicno ragga dhinkaada saaxiibka la adoo qoslaya inay ku arkaan, adoo gurxamaya inay ku maqlaan, adoo qayranaya oo bulhamaya inay ku maqlaan. wax qurux badan maahan. ha lagu shakiyo guriga micdlaa mise waa la joogaa. ha lagu shakiyo dadka shaki ha ka galo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq.